حسبي ووطني وعدالة وذي وكيلني حسبي ووطني وعدالة وذي وكيلني تحتركي سوقرن وفي ودلا وتلوذا بعدكو قالنا وفيا تحتركي سوقرن وفي ودلا وتلوذا بعدكو قالنا وفيا يا هاي وطني عدك وافقا وينو سيرينا ودك لها مرين أمد يا هاي وطني عدك وافقا وينو سيرينا ودك لها مرين waxaa maanta nagu soo booqday guriga gudoomiyaha xisbiga wafdi ka socda EU-da UN-ta Denmark Sweden Germany iyo Ingiriiska dowladda Ingiriiska Britain oo ah dadka taageera process geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland waxaa laga hadluun arrimaha doorashadu sida yihiin wayna xog wareysteen halka wax noo marayaan xisaabta hadaanu nahay wixii aanu qabnay ee moogtay aanu aragno in caqabad noqon karaan waxay ka qaban karaan iyo dhiirigelina in tii dumarka iyo dadka laga tirada badan yahayna heshiiskii xisaabtu wada gashay in sidii loo dhaqan gelin lahaa loo dhaqan geliyo oo waxa heshiis xisaabtu ku heshiisay marka isagana in la adkeeyo waxay kaloo aanu ka wada hadalay sidii loo xoojin lahaa code of conduct oo kuwa hore jiray sidii loo xoojin lahaa elements cusub oo maanta wax ka taraya halkana loogu soo dari lahaa waxaanu kala hadalay kaalinta ku leeyihiin doorashada iyo dimuqraadiyeynta waxaan si aan u wadi jiray in kastoo imika wax badan isbedeleen oo covid adduunkii soo galay haddana ka gacmo laaban maynay waanu imkana waxbaanu bixinay inta ka dhimanna ilaahay idinkii waa keenaynaa marka lagu daro marka 2 milyan ay Taiwan ballan qaaday waxa noqonaysaa lacagta iyagu bixinayaan ilaa 60 40 ilaa 60 bay noqonaysaa marka waxay kabaysaa dadaalkii dawladdu ugu jirtay inay iyadu inta badan qarashka bixiso way kabaysaa waxa kale oo kala hadalay caqabada yar oo imika soo baxay oo ah in warqadii laga qaadan jiray dambilaanta CID-da laga qaadan jiray xeeraranta loo wareejiyay oo anagu fahmayn macnaheedu waxa loogu wareejiyay waxa kale oo laga hadlay shahaadooyinka si ay wasaaradda tacliinta sare guddiga tacliinta sare ee wasaaradda tacliintu ay u xaqiijin lahaayeen waxa jira markaa meel qaar aan xaqiijin karin oo ka horeeyay burburkii dalka marka kuwaana waxaanu soo jeedinay wax la iskaga ogaado xisaabta iyo commissionka iyo wasaaraddu ay guidelines sameeyaan mar haddaanu ninkii shahaadadii sidin uu leeyahay waqtigaas aan qaatay waana ka horeysay iyaguna aan recordkii imikaanana ku sheegaray karin procedure la isla ogol yahay oo aan shaki lahayn oo guidelines ay wada sameystaan in lagu eego maanta ay bilaabeen annaga waxay noo maraysaa way soo xaroodeen gobolada way ka soo xaroodeen dalabkii musharaxiintu intoodii badan Hargeysa way soo gaadheen marka gudidii baa ka shaqeynaysa oo wada darsaysa oo isku guraysa ka bacdina waxa la gelayaa sidii loo shaandhayn lahaa ayaa la gelayaa insha Allah sabta soo socota